بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا الهانتين غيرتها وذا نجدي سنيساي كسر دوادة وركها بالنمو الريديو مركبلي وسيارك بشة فبرايو لبكون يلحي لباتك قضبضة وركها وودر كورونا وحكمدا وزارة جرجاركا كونفور قلبيد ودغراشين جارسيسي بقولي كنتر قويس وكنا الدولات كبيدبو وردا بلشة الرئيد كمقدشو أو كلان فقبتي kaasi oo looga hadlayay waxyaabaha laga bartay deegaanadii la xoreeyay iyo sida lagu gaari karo xasilooni waarta wasaaradda gaashaandhigga iyo amniga Soomaaliya taliyaha booliska Soomaaliyeed iyo saraakiil kale oo ka qayb galay bandhigga caalamiga ah ee difaaca 2026 oo lagu qabtay boqortooyada Sacuudiga wasiirka xogeenka wasaaradda maaliyadda oo soo bandhigay ciidamada dawladda federaalka u joogo mudug qaybta Puntland xarunta tababarada cilmi baarista iyo la talinta ee Salaam Center oo Muqdisho ku qabatay madal looga hadlayay tayeynta bangiyada dalka baarlamaanka oo dood ka yeeshay dastuurka xilli khilaaf uu ka taagan yahay 10,000 oo shilin oo Soomaali ah ayaa loo dilay wiilkeena ilaa haddana meedkiisa waa yaala qoyska cabanayo wiilkooda oo askari uu dilay wararka dibaddana waxaa ka mid ah musiibo ka dhacday xeebaha Liibiya ugu yaraan 53 qof muhaajiriin ah oo ku geeriyootay doon degtay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhageysan doontaan warka habeenimo warka waxaan la socodsiinayo anigoo Yaxya Cabdirasaaq Soofe u diyaar garooba qodobadii aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan aku bilaabo warka caawa wasaaradda gargaarka koonfur galbeed ayaa deeq raashin gaarsiisay 150 qoys oo ku nool duleedka Baydhabo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dawlad goboleed koonfur galbeed iyaga deeq raashin dirsadii 150 qoys oo kumid ah dadka nugul deeqdan waliba suurtageliyay tabarucaad ku xilay shaqaalaha dawlad goboleed koonfur galbeed oo ku howlgala wasaaradda shaldubun intii darartii qaybinta gargaarka waliba goobjoog ka wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dawlad goboleed koonfur galbeed waliba weheliyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka gudoomiyaha degmada Baydhabo iyo mas'uuliyiin kale horeeytii waliba goobtu ku hadlay qaar kumid ah dadkii ku faa'iideysay gargaarku waxaana soo siwiinka mahadnaqay mas'uuliyiinta koonfur galbeed gaar ahaan shaqaalaha dawladda ee ku batay deeqdu raashinka lanki deeqduna si ilaahay khayr si dadka dhibaataysan gumaadsan ahaan inuu gumaaday lanki dhiibidin ilaahay wiino waahiday meedha ku bahay wal khayr qobalaha gili siniyada oo jeeda allah weel shaqaalaha dawladda koonfur galbeed madaxweynaha khayr allah si maal degmada siniyada oo jeeda allah weel meedha ku bateen ilaahay hatana wal allah gili gobolka koonfur galbeed Soomaaliya qaasa madaxweynaha dawladda koonfur galbeed Soomaaliya aan wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda maareynta iyo masiibooyinka wasaaradda gargaarka ya tan degmada arrimaha bulshada kulli dhammaan shaqaalaha qaybasho shalduun ilaahay ma suunaatay amaad nagaana uno ana beele ana geega way baa la kulnay raashin farbano uno ka soo makorno nasi ilaahayna say ku sugo dawladdiina seedi dawladdiina dhiibti amaad nagaana saasoo kale baa goobtu ku hadlay mas'uuliyiinta ku qayb galay yoonku mahadnaqay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka koonfur galbeed dadaalkii ka bixiyay gurmadkii taageero ku dadka nugul siisin bogtin maadaama la ka jaray gurmadkii abaaraha ee dawladda koonfur galbeed oo wasiir Aruush uu soo bi gudiga heer degme oo hogaamiyo degmada Baydhabo hogaamiyaasi may dareeray dadaal badan oo ka saabsan may raayay oo dhinu walba la ilaa xafiis madaxweynaha ilaa iyo wasaaradaha ilaa iyo gaasimayaasha wasaaradaha ilaa iyo maamulka maamulka dawladda hoose ilaa iyo bulshada maamulka xaafado dhamaantiyo juhud ka biyay la aruuri raashin badan oo umudan way raayay la badbaadi karo maadaama may raayay kulaale iyo awaarad may buu halka jar dadaal badan may buu yala soo bi taas markay meel saas may raayay dadaalka la soo bi ilaa iyo madaxweynaha ilaa iyo wasaaradda gargaarka in dadka may buu bulshada iska taladaas oo yes caawinaas oo yamay raayis istabarwaas wala siyaama booya nagata masaakiin tabaalaysan in deeq raashin deersida dawladda koonfur galbeed shaqaalaha kiije oo wasaarado dhamaantiyo oo dawladda koonfur galbeed ka tirsan raashin lacag iyo iska aruuriyan in la deersiyo 150 qoys
deeqtaasoo aan iska jarta bur bariis sokor aan iska jarta dhaqaalahaas oo habiyeen wasaaradaha 25 wasaaradood dowladda koonfur galbeed Soomaaliya shaqaaliga kiije hormuudna ka hayeen agaasimayaasha guud iyo mahad bileeran sugunaatay ugu dambeyntii waliba goobtu ku hadlay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed soo sheegay in dowlad goboleed koonfur galbeed ay ku goonto garab surmowki oo taageero ka dadka sida doonayaan saameeyay abaarta aadan u mahad celina ilaahayna ajra ka siiyo shaqaalaha kala duwan ee wasaaradda agaasimo mubaarag oo matalayana waxaan rabnaa inaad fariintaas mahad celinta ah inaad u gudbisid dadkii hawshan qayb ka soo qaato oo lacagta soo bixiyay fariinta laga gaarsiid ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa sanadkan sanadii hore xoogaa ka bedelan yahay waa sanad annagana la tijaabinay tabarteena la fiirinaysa isugu naxariisanayno sanadii hore waxaan dhigi jirnay adduunkana soo gaar aan loo soo gurno aan loo soo ordo waqti badan lagu soo mooday laakiin sanadkan waa sanad annaga la tijaabinayo oo Soomaali ahaan reer koonfur galbeed ahaan inaan isku tashano loo baahan yahay maanta waxaan bilawnay qaybiska gurmadkaas 150 qoys oo reer Baydhabo ah insha Allah isbuucan dhexdiisana waxaan gaarsiin doonaa 100 qoys oo degmada Walaweyn ah iyo 100 qoys oo degmada Waajid ah waa bilow waxaan kaloo wadnaa lacag ay aruurinayaan dadka saaxiibadana oo hay'adaha u shaqeeya ayagana waxbay aruurinayaan kulli bulshada qayb walba inay wixii ay ka geysato waxaan baaq u diraynaa ganacsatada culimada nooc walba ay ahaadaan in ayagana dadaal intaas la mid ah hadda waa bilaabeen inay dardar geliyaan insha Allah sanadkan isku tashano ilaahayna uu garabkeena istaago bishaar abdi radio markabley Baydhabo ururada bulshada rayidka oo Muqdisho ku qabtay kulan looga hadlayay waxyaabihii laga bartay deegaanadii la xoreeyay iyo sida lagu gaari karo xasilooni waarta kulan ay Muqdisho ku qabteen ururada bulshada rayidka oo muddo 2 maalin ah socon doono ayaa ujeedkiisu ahaa casharadii laga bartay deegaanada la xoreeyay iyo wadooyinka lagu gaari karo xasilooni waarta kulanka waxaa ka qayb galay xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha ururada bulshada rayidka xubno ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha qaybaha ururada bulshada rayidka qurbajoog iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa shirka dahfuray gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Cismaan Muxudiin Shaata waxaan aad ka mahadcelinaynaa ka soo qayb gasheen shirkan loo socdo labada maalmood oo ku saabsan inaan wax ka barano ama wax iska dhaxno qaabka xasilinta dalkeena u socotay waxyaabihii laga bartay iyo heerarkii ay soo martay iyo sida hadda looga baahan yahay in mataqaanaa hore loo sii xoojiyo runtii meelaha aan rabno inaan diiradda saarno labada maalmood ayuu shirka xambaarsan yahay waxaan isleeyahay dadka halkan fadhiyo inkastoo dadka Soomaaliya oo dhan ay soo wadan ahayn haddana dad ka hadli karo waxna ka bixi karo talana ka bixi karo inay yihiin marka laga hadlayo xasilinta oo qeybaha kala duwan xasilinta ka soo wada shaqeeyo arrimaha marka laga hadlayo xasilinta runtii Soomaaliya heerar badan kala duwan ay soo martay xilli waxaa jirtay markii ugu horeysay arrimaha laga hadlo waxay 2011 marka oo aad looga hadalhay ilaa 2012 xataa aan dhaho waxaa jira waxa la yiraahdo zonal plan oo waagaas laga hadli jiray oo ah in zone xasilinta loo sameeyo kadib waxaa loo soo wareegay markii zonal plan si fiican u shaqeeyay waay in la yiraahdo district plan ha lagu xalliyo arrimaha xasilinta oo heer degmo ah in loo sameeyo marka meelo badan ay soo martay runtiina dulduleelo badan ayay lahayd qaabkii marka aad dib u fiirisid heerarkii ay soo martay xilligii 2012 xilliga horta ugu fiicnaa ayay ahayd maxaa yeelay intaana dowladda la wareegin meelaha ay shabaab gacanta ku hayaan waxaa la sii diyaarinayay tiimka ka shaqeynaya markii lala wareegay asi maamul ahaan waxaa lagu magacaabi jiray caretaker kadibna inay noqoto markaas administration oo kumeel gaar loo sameeyo kadibna loo sameeyo mid ay dadku doortaan processka saas ayuu ku socday annagoo marka waxaasoo dhan tixgelinayno ayaa waxaan rabnaa labada maalmood maadaama weli baahidii ay jirto stabilizationka oo weli loo baahan yahay in dalkan stabilizationkiisa wax laga qabto
inaan labada maamood aan ka soo saarno talooyin la xiriira sidee ku habboon oo marka stabilizationka loo xoojin karaa iyadoo aan wadaagayno waxyaabihii aan ka baranay qorshayaashii hore la soo maray talo badan aan ka soo jeedinayno runtii sidii markaa wax loogu qaban lahaa. sidoo kale qaar ka mid a xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka oo kulanka ka qayb galay ayaa dhankooda madasha hadal ka jeediyey. casriyeenta hadda booliiska iyo meelo badan ku socota inay aad iyo aad ay socoto isla shaqayn xoogan annagana aan diyaar u nahay annaga oo baarlamaankii ah inaanu kala qayb qaadano wixii bulshada Soomaaliyeed iyo aragtiyahooda iyo xil walba maaragtay ku wajahan iyada oo hadeer wadanku galay nidaam xisbiyo iyo in la aado shacabka codkiisa la helo taasoo muddo lagu taamayay marka loo eego dhalinyarada iyo haweenku inay ka qayb qaataan siyaasadda oo ay caqabada ku ahayd. hadeertaan oo dawladnimadii ay toostay oo amniga magaalada aad aragteen shabaab lala diriray xasilinta maanta waa loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo waa loo baahan yahay waqtigii loo baahnaayo ku soo aadiseen waxaa idin sugaysa howl adag dawladnimada maanta meesha ay joogto waxaan ku faanaa in ay keeneen ururada bulshada in ay keeneen haweenka Soomaaliyeed juhdi badan la geliyay doorka aad ku leedihiin waa la yaqaanaa maxay ahayd aad u mahadsantihiin annagana xasilinta waa idin kala shaqaynaynaa. wasaaradda gaashaandhigga iyo amniga Soomaaliya taliyaha booliska Soomaaliyeed iyo saraakiil kale ayaa ka qayb galay tartanka bandhigga caalamiga ah ee difaaca 2026 oo lagu qabtay boqortooyada Sacuudiga. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya أحمد معلم فقي وزير كأمنية جودها عبد الله الشيخ إسماعيل فرتاج يتليها عيدا كبوليس كصوماليات سريبو تاسد عثمان عبد الله وبوق ششق وكجو جم مجالات الرياض بقرطوية السعودية أرابيا يا مانتا كقريب جلاي فوريتان كبندقة عالمية الدفاع على بكون لحي لبعتن وحاصل رسمي بندقة نوده فري وزير كجاشاندقة بقرطوية السعودية أرابيا أمير خالد بن سلمان كاسو ودلكي سمرتجلنا يبندقة bandhigan riyaad 2026 oo kamid ah munaasabadaha caalamiga ah ee ugu waaweyn ee dhinaca difaaca ayaa lagu soo bandhigay tiknoolajiyada casriga ah qalabka military iyo xalka horumarsan oo la xiriira amniga iyo difaaca waxaana ka qayb galaya dalal iyo shirkado caalami ah kuwaas oo ay qayb ka yihiin wafdiga wasiirada gaashaandhigga amniga gudaha iyo taliyaha ciidanka booliiska oo Soomaaliya ku matalaya bandhigaas caalamiga ah. bandhigan oo socon doona ilaa iyo 12 bishan ayaa waxa asaasay hay'adda guud ee warshadaha militariga ee General Authority for Military Industry oo loo soo gaabiyo GAMI kaas oo muddada uu socdo lagu soo bandhigi doono tiknoolajiyada casriga ah qalabka military iyo difaaca mustaqbalka. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed sareeyo guuta Asad Cusmaan Cabdullaahi oo kamid ah wafdiga dawladda ee bandhigaas ka qayb galaya ayaa inta uu ku sugan yahay Sacuudiga waxa uu sidoo kale kulamo gaargaar ah la yeelan doona mas'uuliyiinta amniga dalkaas iyo dawladaha kale ee ka qayb galaya muddada uu bandhigu socdo. wasiir ku-xigeenka maaliyadda Soomaaliya oo soo bandhigay ciidamo dawladda federaalka u joogo mudug qaybta Puntland. wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya xildhibaan Xange ayaa markii ugu horeysay si cad u soo bandhigay in ay jiraan ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya oo ku sugan gobolka mudug gaar ahaan deegaanada hoos yimaada Puntland. wasiir ku-xigeenka ayaa sheegay in ciidamadaas ay yihiin kuwa ka amar qaata dawladda federaalka ah ee Soomaaliya isla markaana loogu diyaarinayo halkan in ay qayb ka qaataan ilaalinta amniga la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo sugidda xuduudaha maamulka. ciidamadu ma ahan kuwa colaad wata waa ciidamo qaran oo ka shaqeynaya amniga guud ee dalka looma diyaarinayo in ay dhibaato ka abuuraan deegaanada Puntland ayuu yiri wasiir ku-xigeenka maaliyadda. sidoo kale xildhibaan Xange ayaa hoosta ka xariiqay in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay dardargelinayso tayeynta iyo tababarada ciidamada xoogga dalka ee ku sugan deegaanada Puntland. dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa kol sii horeysay si rasmi ah u shaacisay in mushaar joogto ah loo bilaabay ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo ku sugan deegaano kamid ah Puntland gaar ahaan gobolada Mudug, Nugaal iyo Bari.
mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in tallaabadan ay qayb ka tahay qorshe ballaaran oo lagu mideynayo laguna daryeelayo dhammaan ciidamada dowladda federaalk ah ee Soomaaliya meel kasta oo ay joogaan si loo xoojiyo amniga qaranka iyo wada shaqaynta ciidamada heer federaal iyo heer dowlad goboleed intaba. qaar ka mid ah askarta ku sugan goboladaas ayaa soo dhaweeyay go'aanka iyaga oo sheegay in mushaar joogto ah uu kor u qaadayo niyadda iyo diyaargarowga ciidamada isla markaana yaraynayo dhibaatooyinka nololeed ee haysata askarta iyo qoysaskooda. tallaabadan cusub ee dowladda federaalk ah ee Soomaaliya ayaa muujinaysa dadaal lagu doonayo in lagu mideeyo ciidamada iyo in la xoojiyo xoojinta mushaarka askarta iyada oo weli isha lagu hayo sida ay arrintan uga falcelin doonaan maamulka Puntland iyo saameynta ay ku yeelan karto xiriirka labada dhinac. xarunta tababarada cilmi baarista iyo la talinta ee Salaam Center oo Muqdisho ku qabatay madal looga hadlayay tayeynta bangiyada dalka. xarunta tababarada cilmi baarista iyo la talinta ee Salaam Center ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay madal aqoon wadaag ah oo looga hadlayay tayeynta bangiyada. madashan oo ay isugu yimaadeen madax iyo mas'uuliyiin ka socday bangiyada kala duwan ee dalka ayaa diiradda lagu saarayay tayeynta adeegyada bangiyada, hufnaanta nidaamyada maaliyadeed iyo xoojinta kalsoonida dadweynaha ay ku qabaan bangiyada gudaha. intii ay madashu socotay waxaa si qoto dheer looga dooday muhiimadda ay leedahay horumarinta kartida iyo xirfadaha howlwadeennada iyo sida bangiyada ula jaanqaadi karaan isbedelada dhaqaale iyo kuwa tiknoolajiyadeed ee ka socda caalamka si loo helo nidaam maaliyadeed oo casri ah kana jawaaba baahiyaha bulshada. dadkeena aan diyaarino bangiyaduna dadkooda had diyaarshaan maanta qodobka uu ku hoggaansanaa si field walba iyo position walba ay u qaban karaan wixii looga baahnaa. haddaad xirfad lahayn mararka qaar hadda foomka hata dunida ka jira ma buuxin kartid wixii waa fogaadaba qof consultant xirfad leh inaad u yeeratid waa daarabto inaad foom xisaabaad amaanta buuxisid. shuruudaha bangiga dhexe uu rabo haddaad rabto inaad buuxisid waa in qof certified uu sameeyaa. waxa haddaad haysanay marka dad kale marti u noqonaysaa marka inaan wada ama aan isu diyaarino inaan wada marti naqano ama in marti naloo noqdo. marti waxaa nolon kugu noqon karaa inaan anaga diyaarsano oo anaga dadka wax u yeerin haddii kale waa naloo yeeri doonaa. in bunuugta ay wada hadlaan interoperability of the banks in la xoojiyo in la xoojiyo SIPS oo kale Somali Instant Payment System-ka in la xoojiyaan dheelaa sababta waxay keenaysaa taa in bangiyada aanan noqonin silos oo mid walba meeshiisa ku xiran yahay in waxayna fududeynaysaa lacagaha inay socdaan dalka ay lacagaha si fiican u socdaan bank A to B C si oo socdaan taa ayaa keenaysa marka inaan gaarno hadafka ah stronger singular banking inaan gaarana taa baa xoojinay. wadankan haddii nabadda ay sii xoogaysto uu soo furi doona waxaa imaan doona intaasoo ajaaniba oo East Africans ay ugu horeeyaan oo certifications wato skillna wato. skillka number 1 waxaa ka communication. qofku wax ma qori karaa dadka markii communication kusoo dhacay Englishka kusoo dhaco waxaa asalka ah Soomaaliga. qof Soomaali wax ma ku qori karaa Soomaaliga ma ku hadli karaa wax ma ku report gareyn karaa. ingiriiska usoo gudub carabiga luqadaha kugu xeeran waa inaa xoogga saarto ugu muhiimsan. waxaa muhiima in laisla shaqeeyo macnaa in laiskaashado laisla shaqeeyo oo maaragtay hadday tahay heer wadan hadday tahay heer ka sokeeya hadday tahay heer dhexe waxa ugu yar oo lagu tusaale qaadan karaa Salaam Center haddii hadda ay maaragtay ay bangiyada iyo resource-ka ay haystaan ee wax kusoo kordhinayso waxaa laga wada faa'iidi karaa waxa la yiraahdo economies of scale. 5 qof oo certification samaynayso oo bangi hebel ka timid haddii min 4,000 laga qaadan lahaa waxaa laga yaabaa hadday konton noqdaan oo bangiyo badan isu tagaan in maaragtay $1,000 lagu soo dhammayn lahaa waxaa 2,000 adigu kugu kici lahaa markii dad badan la socoto marka Salaam waxaan ka sugaynaa center inay keenaan isla socodkeenu faa'iidada uu keenayo. dialogan maanta oo executive level ah waa 2 qaybood sidoo Dr. Shaafici ka dhawaajiyay. ujeedadu waxay tahay markale ka mid celinayno bangiyada mas'uuliyiinta ka socda ee soo sharfay in bangiyadu isku soo dhawaadaan oo si kaabna runtii shaqadii wacneed ay haysay ururka ay hayeen tiimka gudoomiyaha Khadar ee tiimkiisa ururka bangiyada Soomaaliyeed anagu mahad celin runtii inay nagala shaqeeyaan munaasabadan sidii ku hirgelin lahayd markastana abaal u hayna waxaan ka rajaynaynaa maanta isdhexgalkan
doodan odayaashu furi doonaan kadibna si cumqi ah akhyaarta round tableska fadhiya ay madaxa isgelin doonaan dhowr daqiiqo gruubka ay u fadhiyaan ay yani isla taaban doonaan problemska sidii loo gudbi karo innagana marka sabsaan sheegna waxaan u taagana Salam Center gaabka aad wada ogtihiin doodahan ka soo bixi doona inaan isku dayno inaan ka jawaabno sida ugu macquulsan waxa ilaahay mahadiisa inaan maanta xarunteeni labaad aan ka furayno Muqdisho hal arrin raba hoos inaan ka xariiqo oo haddaan la kaftamay odayaashan dhahay Salam Center ma ahan center Salam Somali Bank kaliya loogu talagalay waa training center dhammaan qof kasta oo rajeynayo inuu certification mase skill gap laga qabtiro inuu u furan tahay xaruntan hadday tahay si individual hadday tahay si oo corporate ahaan kaliya ma ahan waxaan bixinayno training iyo certification loogu talagalay banking sectorka all other sectorna sidoo kale waa tababarna hadday noqoto logistic finance waxaan kaloo aan kusoo biirinay centerka inta la furan ka hor accreditation-ka aan ku helnay in aan noqonay accredited exam center oo imtixaanada lagu qaadi karo oo lagu ammaansaday ammaanada kormeerkii iyo imtixaanka la bixinayo dhinaca IT-ga haddaan ka hadlayno Cisco, Oracle, Microsoft all certificate internationalka la qaadanayay PMP in aan haysano accreditation center imtixaanka lagu qaadanayo ayuufi sidoo kaleeto maadooyinkeeda imtixaamadeeda ama sidoo kale aan ku bixino career pathna waa sameynay oo dadka rabaan inay isku diyaariyaan positioning oo corporate-ka ama shifting ku sameynayo from corporate to corporate iyada sidoo kaleeto barnaamijyo qaar aan u sameynay way jiraan social responsibility programs muasasad badan naga caawinayeen sidoo kaleeto waa u diyaarinay ardayda jaamacadaha dadka ganacsiga oo hadda bilaabay oo startup-ka sameynayo sidoo kaleeto waxaan isleeyahay howlalka qaabka loo diyaariyey facilitation-ka la sameeyey waxaan leenahay inaan wax ku soo beerin karno quality-ga iyo environment-ka lagu qaadanayo aqoonta iyo waxbarashada waxaan u mahad celinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala Salam Somali Bank maamulkeeda oo iyagana sidoo kaleeto nagu caawiyeen in aan diyaarino centerkan sidoo kaleeto u fureen fursadda bangiyada oo isku role ka gudbisanayaan wadanka sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa ururka bangiyada oo aad iyo aad nooga shaqeeyay barnaamijkan inuu noo hirgalo iyo central bankiga oo sidoo kale nagu soo booqday Djibouti kala shaqeynay barnaamijyo kale oo soo socda sidoo kale insha Allah taala la wadno Salam Center ayaa waxaa ka go'an in ay si joogto ah u qabato tababaro iyo madallo aqooneed oo noocan oo kala kuwaas oo lagu horumarinayo xirfadaha iyo kartida shaqaalaha isla markaana xaruntu ay u fududeyso inay helaan shahaadooyin caalami ah ugu dambeyn Salam Center ayaa bangiyada ka soo qayb galay munaasabadan guddoonsiisay bilad sharaf ah ay ugu mahad celinayso kaalinta ay ka qaateen horumarinta sektorka bangiyada iyo kobaca dhaqaalaha dalka baarlamaanka oo dood ka yeeshay dastuurka xilli khilaaf uu ka taagan yahay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo gabagabeeyay dooda soo jeedinta kooban ee wax ka beddelka qodobka 49aad 50aad iyo 54aad ee cutubka 4aad waxay xildhibaanadu guda galeen ka doodista soo jeedinta wax ka beddelka cutubyada 5aad ilaa 9aad ee dastuurka gaar ahaan cutubka 5aad fadhiga baarlamaanka ee golaha wakiilada ee labada aqal ee Soomaaliya ayaa maanta ku bilowday jawi degan kadib markii maalmihii la soo dhaafay uu sawaxan iyo waliba buuq fara badan u hareeyay kaasi oo ku saabsanaa xildhibaanada qaybo kamid ah oo si weyn u diidanaa wax ka beddelka dastuurka hase yeeshee baarlamaanka madaxda ugu sarreysa ay ganaaxeen inay fadhiyadaasi soo xaadiraan baarlamaanka oo maanta jawi degan ahaa ayaa si toos ah qodobadaasi u soo gabagabeeyay iyagoo si toos ah markaasi u godogalay cutubyada 5aad ilaa 9aad ee dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya kaasi oo la filayo in asagana ay ka doodaan soona gabagabeeyaan waxyaabihii dhacay waan la soconay baarlamaanka Soomaaliyeed waxyaabahan ku qurxoonayn baa dhacay laga baaqsan karay si sidaan ka wanaagsan loo dhaqmi karay annaga nafteena ceeb ifoolxum ay nagu tahay xildhibaano asaageena koligeena deegaano iyo dad metelay in maanta ay ka maqan yihiin banaanka ay uga maqan yihiin saaxiibadeenu waaye aragtida iyo fikirka waa lagu kala duwanaan karaa kuweenan halkaan fadhi maanta wada faraxsan beri bay imaan doontaa waxaadan ku faraxsanayn si aadan jeclayn inay timaado ani ismalihi guddoonkii iyo baarlamaanka labadiisa aqal halkaan fadhiya sida hadda u naala si qurux badan ma
waxaan ka doodayna waa dastuur ummadeed waa heshiis bulsho waa waxyaabo u baahan inay ummaddan ay mideeyaan waxaynu u baahannahay si sidaa ka duwan haddaan in la samayn karaan aaminsanayn waxaan rabaa mudanayaal waa asaageen waa saaxiibadeena maalin walba sanad walba isku mid ma ahaan karto isku nooc 2022 waxay jiri jiray haddana inay maantana ay jiraan kuwa nagu xigin ay saa sameeyaan marka aniga tale waxaan kusoo jeedinaa guddoonka ragga saaxiibadeena hadday aragti iyo dood ay qabaan oo waxay sheeganayaan ay microphone-kan ka sheegan karaan in fursad loo siiyo laakiin xoog loo isticmaalo sharcina ma aha xaqna ma aha waxaynu ognahay isbeddelka aan maanta aan ka doodayn heshiisyada waxaa ka maqnaa dowlad goboleedyaha horey uga maqnaa oo dooda heshiisyo loogu talagalay in siyaasi loogu heshiiyo xildhibaane waa ku dhagaysanay aragtida kusoo laabo 10,000 oo shilin Soomaali ah ayaa loo dilay wiilkeena ilaa haddana meydkiisa waa yaala qoys ka cabanaya wiilkooda oo la dilay isla markaana uu dilay nin askari ah 10,000 Soomaali loo dilay waka waxaa dalbeena cadaalad rasmi ah inaa sharci nafsi walaalkeen istinam xalaya wata inoo laga deyninka oo banax noo la sameyninba maxaa baana dawlad xaq rabnaa markaan xaqeena rabnaa bis wax kala rabnaa Soomaali in loo dilo oo gacanka xaq daran ay disho oo ilaa hadda meedkiisana uu yaalo oo لكن عملية عندي تشبيه كله تشبيه اللي فوق ده مركز العمل في سياية السري وصار تعمل عتلي ما يحبذوا في رأي قليل كي أنا أقول من أقصد قرص باريا أنا قرصنا إلهي بارو صايرت ولا ياركي waa hooyada dhashay Fuad Nuur Xasan oo 23 jir ahaa kaasi oo lagu toogtay xaafadda Saybiano ee magaalada Muqdisho. Fuad waxa uu ahaa kirishboy la shaqeynayay gaari caasi ah waxaana la toogtay xilli uu ku sugnaa kontaroolka Saybiano. askari ka tirsan ciidamada dawladda ayaa la tilmaamay in xabad uu ku dhuftay. waxa la tilmaamay in xabadaasi ay kula dhacday bixinta lacag 10,000 oo shilinka Soomaaliga sida ay noo sheegeen eheladiisa. dhaawac ahaan ayaa loogu qaaday isbitaalka halkaasi oo ugu dambeyn uu ku geeriyooday Fuad. hooyada dhashay oo lagu magacaabo Faadumo ayaa waxa ay ka hadlaysaa dilka wiilkeeda. باريا إيه صباح يقصد تري أي شقينا أوامنا كسكري أوامنا كسكري ولا نها ولا يري وها يري ولا لو كان بس ما هي وريا بعير أنا ما أسكلي أنا شقالة هاي وريا هذا ويلكلا كسود جاجوسي ولا لو دوا لو قوي صوت دقايري أمرت هذا صوت دقاير أنا ما هولو كاقبا مركده هاي وأكدري ولا يالو ودي أصلاً ليه عاد البنسان أنت دين تاسلب وحكستب أو عدال من اللي قبل بالكي أنا أقول من أكسو قرصود باريا إيه أنا قرصونا إلهي بارو صايرت ولا ياركي يا فؤاد نور حسن وإذا في لي على سولدير على بس وقت أنا سو قرصود باريا صايرت ولا ياركي darawalkii gaariga uu ka shaqeynayay Fuad ayaa dhankiisa warbaahinta la hadlay isagoo faahfaahin ka bixiyay sida ay wax u dhaceen. nin askariya nin walaalkay ila soo tixbuuriga dulmi ku dilay nin amleeyay soo shitaaqnigan oo lacag uu qaadaay oo lacag loo ururinaay nin amleeyay uu tixbuur ku ligay tixbuuriga faqada markii la cimil fisiyaay askari oo soo tamal adii ma yaxbado fi raaw gali markii xabada xagee ka dhacay xabada kaliya uu dhacday nin akila ka bacday askari hal saax la doodin hatta ninka tixbuur waa masaakiin waa shaqaysanoo yaa kala xadaan oo kala xaway hatta adii ana la taayno xabada ku nuftin gaamar askari hada mal qabtay أسرية أنا قاعد أدري قبض سليق هذول الرجال سليق هذول يرجع نرسل اللي شقيه هذه وحبضنا تسوي شقيين سفي أنا وغانا ويدي سوا غانا عدي سنة وغانا نو ولا لو نفط إيد نفط نود حسين وحبضنا تسوي شقيين بسم الله حال إلا سوجي ذا من جيفنا أبو qaar ka mid ah xubnaha qoyska oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay dalbanayaan cadaalad iyaga oo sheegay in wiilkooda gacanka xaq daran ay dishay iyaga oo tilmaamay in gacanta lagu dhigay askarigii dilka geystay isla markaana uu xiran yahay. xalay 9 saac bar waa dhintay wiilkii isku abaanay waa ka dawladda waxaan ay gaarsiinaysaa in ninkaas oo naga qabtaa waxaan oo qabtay ilaa hadda ma lahan wiilku waa la Fuad Nuur Xasan waa ka Saybiano
waxaa loo dilay lacaga sii 10 kun oo baahda in dawladda oo alshan ay ka qaataan aa loo dilay ya 10 kun Soomaaliya loo dilay ha waa ka waxaa dalbeena cadaalad rasmi ah in sharci la siiyo walaalkeena waa ka nuur xasaan ii dilay gacan xaq darna ii dishay maxaa lahaye wiilkeena shalay naga soo tagay 10 kun oo shil Soomaaliya loo dilay ma fahmino qof wax noqonays cadaaladna ma jirto meeshaan qof kastaba had jistana maxaa laga yaabaa in hoos laga deyninka oo banax nolol sameeyninba maxaa baana dawlad xaq rabnaa markaan xaqeena rabnaa bis wax kala rabno ya wiilkeena baawar ka shaqaysanay hay ma jirtee waa ka saa marka maxaa dalbanaysaa maxaa dalbana xaq oo wiilkeena la siyaarabaani kaalin nooceeda ku geysan jiray nolosha qoyska wiilkeena baawar ka shaqaysan jiray wiil miskiin oo shaqaysan jiray soo yahay seebiyaan lagu dilay waa ka saa walaalkay shalay gacanka xaq daran ay toogatay diigbax iyo daryeel xumo u dhintay ilaa haddan wax naloo qabto ma jirto dawladda Soomaaliyeed waxa ka codsanaynaa gacanta ka xaq daran ee dishay in cadaaladda naloo soo saaro nolosha qoyska kaalin nooc kaga jiray nolosha qoys hooyadiisa agoonnimo ay ku soo korisay walaalihiisa yar jooga $2 $3 wuxuu helo u keeni jiray haddana 2,000 oo lacag Soomaali in loo dilo oo gacanka xaq daran ee disho oo ilaa hadda meedkiisana uu yaalo waxaan leenahay dawladda Soomaaliyeed ninkaas gacanka xaq daran ah dishay sida cadaaladda ay tahay hana la soo qabto haatanna ku soo dhawaada wararka dibadda musiibo ka dhacday xeebaha Liibiya ugu yaraan 53 muhaajiriin ah oo ku geeriyootay doon degtay hay-adda caalamiga ee socdaalka IOM ayaa maanta oo Isniina waxay xaqiijisay in ugu yaraan 53 qof oo muhaajiriin ah oo ay ku jireen 2 caruur ah oo yaryar inay ku dhinteen badda Mediterranean-ka kadib markii doon ay la socdeen oo caag ka samaysan ugu yaraan 55 qof ay ku degtay xeebaha dalkaasi Liibiya ee waqooyiga qaaradda Afrika ku yaala sida ay sheegeen dadkii ka soo badbaaday musiibadan argagaxa leh doonta ayaa ku rogmatay meel u dhow magaalo lagu magacaabo Zuwara oo waqooyiga galbeed ee dalka Liibiya ku taala qiyaastii 6 saacadood kadib markii ay ka baxday doontaasi magaalada Al-Zawiya 5tii bishan aynu ku guda jirno waxaa howlgal badbaado ah oo ay fuliyeen ciidamada ilaalada badda dalka Liibiya lagu soo badbaadiyay kaliya 2 haween ah oo u dhashay dalka Nigeria oo galbeedka Afrika ku yaala mid ka mid ah haweenkaasi badbaaday waxa ay sheegtay in ninkeeda ay ku weysay musiibadaasi dhacday iyo 2 caruur ah oo ay qaadeen hirarka badda kuwaasi oo wali la baadi goobayo kooxaha caafimaadka ee hay'adda IOM ayaa gargaar degdeg ah waxay u fuliyeen 2 haweenka ee soo badbaaday markii la keenay xeebta dalka Liibiya muhaajiriinta saarnaa doontan ayaa dhammaantood waxay ka soo jeedaan dalal ku yaala qaaradda Afrika waxayna hadafkooda ahaa in ay gaaraan qaaradda Yurub si ay nolol wanaagsan halkaas ay uga helaan sanadkan bilowday hadda 2026 waxaa la diiwaangeliyay 484 qof oo muhaajiriin ku dhintay badda isku xirta Liibiya iyo Talyaaniga sanadkii la soo dhaafay in ka badan 1300 oo qof oo muhaajiriin ah ayaa lagu waayay isla marin biyoodkaasi badda Mediterranean-ka hay-adda socdaalka ee qaramada midoobay u qaabilsan IOM waxay ka digtay shabakadaha dadka tahriibiya oo wali ka faa'iideysanaya dadka dhibaataysan iyagoo ku guraya doonyo aan loogu talagalin in dadka ay qaadaan IOM waxay ku baaqday iskaashi caalami ah oo xoog badan in la sameeyo si loo badbaadiyo nafta dadka muhaajiriinta loona helo wadooyin sharci ah oo ay dadkaasi ay ku gali karaan wadamada qaaradda Yurub musiibooyinka noocan oo kalena looga badbaadin karo dalka Liibiya ayaa wali waxa uu yahay marinka ugu weyn ay isticmaalaan dadka ka cararaya dagaalada iyo colaadaha iyo sabooltinimada ka taagan qaaradda Afrika iyo bariga dhexe tan iyo markii uu galay dalkan qalalaasaha siyaasadeed ee bilowday sanadkii 2011 oo la riday Colonel Muammar al-Gaddafi waxaa markaasi la sheegay in 15 sano ee la soo dhaafay 33441 qof oo muhaajiriin ah inay ku dhinteen badda Mediterranean-ka meelaha sida aadka sidoo kale looga tahriibo waxaa ka mid ah Tunisia iyo Algeria dadku waxay aadaan dhanka Talyaaniga ama Spain waxaana u badan dadkaasi muhaajiriin qaaradda Afrika ka tagtay Liibiya waxaa ku sugan dad magafiyaal lagu magacaabo
oo inta dadka muhaajiriintu ay qabsadaan qoysaskooda waca kana qaata lacag madax furasho ah oo in ka badan 10,000 oo dollar gaaraysa. dhegeystayaal warkii waad kala socoteen idaacadda Markabley caawa waa naga intaa warka waxaan la socodsiinayay anigu Yaxya Cabdirisaaq Soofe tan intaan warka xiga ku kulmi doono amaana Allah.